السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقييمها قدرنتيga mudanow waa anigoo ah in Cabdullaahi Maxamed waxa idinayaa qiso cajiib ah dhageysi haboon waa qiso xaqiiq ah oo ka dhacday dalka Iraq sanadku markuu ahaa 1999 waxayna u dhacday sida tan waxa dhacday in nin da'diisu tahay 70 jir baa waxa lagu xiray xabsi isagoo lagu xukumay in gaajo loo dili doono waxaana loo diiday inay aysan soo booqan karin waxa kaliya loo ogolaaday inay soo booqato gabadh isagu dhalay mooyee hase yeeshee gabadhii waxa soo booqatay aabaheed waxaana aad looga baaray inay cunto u siday iyo in kale baaritaan kadib gabadhii waa la soo sii daayay maadaama aysan wax cunto u sidin gabadhii waxay la kulantay aabaheed waxayna u adkeysan weyday baahida iyo gaajada aabaheed waxayna bilowday inay aabaheed naaskeeda ku quudiso ama caanaha naaskeeda siiso muddo markay sidaas ku wadayba maalintii dambe waxa arkay ilaalaha xabsiga dadkii meesha joogay cajiib bay ku noqotay naxariista dumarnimo ee gabadhaasi aabaheed u qabto waxaana loo go'aansaday in loo cafiyo aabaheed loona sii daayo waana loo masaxay haweenka taasoo naxariis ah laga helayo dhibaato miyay naga mudan yihiin haweenka waxay ka mid yihiin naxariista alle ee adduunka nagu siiyay waana janno adduunka la nagu nimceeyay ilaahay cadaabta ha ka xoreeyo dumarka